بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد halkan waxaan ku qabanaynaa gabay soo baaqa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaaneedna beelaha walaalaha ah ee halka maamul madaxa la isugu gelinayo ee maalmahan xaaladoodu ka cakiran tahay magaalada Gaalkacyo amba gobolka Mudug ayaanu rabnaa inaan ka hal abuur ahaan dareenkayga aan la qaybsano gabaygaas aan ku qabanaynaa waxa xagga kaamirada jooga walaalkay ILbuur aad baan uga mahadcelinayaa injineerka aynu wada socono daranyada qabiil baa xumaan daawo loo suray dunidan waxa lagu haligay waa dagaalada dacal iyo ilaa dacal kala dirirku ciiryaamay duufaano adag baa ka dhaca dayra dhaafyada docdii aad ka eegtaba colba loogu duur xulay dabayshuna waxay taagan tahay daad fatahay maanta ayadoo dagaagoo nafluhu kala dilaamayo qaarkoodna doon lagu harqiyay daalna ku haraadan kuwa dayaxa aadaa jiro dooga tiigsaday badidood waxay diidan yihiin duul kaloo tagay diibsaba intaa lagu dhahaa kii dadaal rabe ma dayeysan tahay Soomaaliyeed dooxa laga guuri gurbiyow damiirkii wacnaa dhooba lagu duugiye dusha Gaalkacyo maantadan la isku dilayay dadka mudug ku nool baa colaad duudka loo suray kala daran diryaankan maqliyo dadka soo rogaye dhag daboolan baan gabay ku furin oo dareen qabine dooxashada dhasheenaan rabaa inaan ka doodaaye docdaadiya dhankaas gabay ka tiri diibso waa tale dadka mudug ku noolow adduun waa isdabayaale idinkoo dabiib heli kariyo daawo nabadayna oo aan dudada barakiciyo dirir u maanshaynin ama aan duntii dariisnimada dacartu liishaamin oo aan dad aad jeceshihiin iilka lagu duugin oo aan hadeer diricyo nool duraygu sii qaadin oo aan daluun lagu dhex ridin nabadda diifaysan oo aan dugaag iyo dhurwaa daaqin hilibkaaga iska daa dagaal iyo qabiil daawo lagu waayay hadduu gabay dabiib leeyaho daranyo reebayo doorkii abwaantima caddaa meel walbaba laga dareemaaye dugsi male qabyaaladii ragow danab ka xoog weyne laakiin dareenka ka maqal diricyadeeniye dhag daboolan baan lagu karayn daa Collaadaha dirka midug ku noolow ka baxa diga madoobaadka inkastoo dudadu nabad rabaan lagu damaashaado siyaasiga dantiis karinayaa daalin samihiiye dan wuxuu u haystaa awood inuu ku duulaaye dabka shidan warhoy maanta yaan daban la sii saarin oo dooga roobka iyo nimcada dhiigga lagu daadin oo nabaddu waa daalantee dayro lagu kaabin oo daalin iyo tuug tolow noo dulaan noqonin inaan diidna mooyee marnaba yaan la daba yaacin nimanka waxaan leeyahay dadka isku dirayo oo habka maamulka amba habka horjooga ku marooqsanaya waxaan leeyahay yaan arintooda la yeelin waliba waxaan baa qaban diray dhalinyarada yaryaro la khaldayo qoryaha loo dhiibay wallaahi billaahi tallaahi hadaad dhimatid inaanu qabrigaaga imaanayn booskaagiina mid kale u qoranaya adiguna inuu mushar aad qaadan waan ogahay xaqaagiina asaga cuna wallaahi hadaad hab qabeel u dhimatay akhrina waa lagu cadaabin adduunkana nolol fiican kaga tagi maysid kumana dareemayo marka intaad hadeer nooshahay oo aadan dhaawacmin oo aan luguhu ku go'in oo adduunka aad joogto ahay tahay ayaad naftaada u talin kartaa dagaal qabiil ha u dhiman ha gelin waxaan ku leeyahay ka joog adna walaalka ha dilin adna yuusan walaalka ku dilin inkastoo dadka Gaalkacyo qayb la kala daahay laba dacan laga soo dhigo dayr la kala ootay dulaal iyo milaalbaa fakray duubna ku xiray intaan wada jir ku doonayo dabada ku joogo diracyana midnimada rabaan daranya ka reeba dulli ma diracyana midnimada rabaan daranya ka reeba duulimaad colaad iyo ka joog dooxatiyo tuugo oo yu dangaar doonashada doobta kugu yeerin hadaad diido doorkan talada kuugu dacal saaray oo dirir u qaashaamato dagalku qiiqaabo oo subax dagaal la isku galo boqol la soo duugo dabaqyadu hadii ay dumaan danabku sii leefo
dudadii bahdeenuba hadday duurka ku abaado waxaa ugu dambeyn laga heshiin dib u dhacaagiiye duugana salkeedaad ku arag hebeladaad duugtay raggii deeqsiyada kaa dilo dooni wada saaran oo aan dilkii shalay dhex maray dihasho soo qaadin waa daruus naftaydaan taqaan daab siyaasiga nimankaa haldana wada wataan duur u galaynaaye doorkaagu waa maanta oo laga dawoobaye diriirtaan hakiyo reer tolow digasha waa ceebe wallaahi oo bilaahi oo tallaahi yacni anigu da-igu filan baan jiraa markay labo tumbuur ku diriraan meel amba ay laba beelood isku laayaan maalinta ugu dambeysoo la heshiiyo ayagoo gacmaha wada haysto oo tiyaatar wada saaran oo muusig loo tumayaad arkaysaa laakiin waxa ay qusaysaa waa hoobyada gablantay gabadha asayda loo saaray iyo ilmaha agoontoobay iyo wiilka reerka madig ugu ahaayoo la deeyey unbay taabanaysaa wallaahi cabdiweligaas iyo cabdikariin guuleed waxaad arkaysaa ayagoo xamar ama gaalkacyo ama garoowe ama cadaado loogu wada tumaya muusig oo maadhal wada saaran idinkana maanta waxay rabaan saaldaata inay idinka dhigtaan oo ay siyaasad ayagu ay wataan ay idinku gaaraan waxaan idin leeyahay dhallinyaro arrintaa ha laga waantoobo ha yeelinina mar labaad iyo mar saddexaad aan idinkugu celinaya dad isjecel haddii la isku diro daanta laga guuriye adoo gaalkacyo daalan oo diifna ku abaaday dihashada tabcaanka adoo daranyataahaya iska daadin doobiga yaroo dacalka ku yaala hana diidan odayaasha wada dib u heshiisiinta oo qorigu ruux buu dilay daawaha u qaadan soo xasuuso door hore wixii danab ku soo leefay wixii geesi aad dubatay oo iilka lagu dayray daranyada asayda lagu dulxiray deeqa iyo luulaa dibna laga heshiiyee la bixin daynta magahooda ha il duufin xaajadu hadday doonis leedahay doc qurana u wada jeensidoo doorta samihiinna oo ilmada ha soo daadininee duuga xumaheeda dacaskana ha loo wada ilado dooga iyo khayrka waan naqaanaa dee Soomaaliya dhan waan garanaynaa Soomaaliya dhan way islaysay waa meel walba la kala tagay intii ugu dambeysay islaysay baa isugu wada yimid tiyaatar oo ku wada hadlay aad aragteen oo garbaha haysta meel yar oo gaaban baan idinkaga soo qabanaya bariga dawladda Cabdullaahi Yuusuf anu intaydan leekaa waan joogay dagaalku ugu xooganaa wixii la galay waxaan maxaakiimta islaamiga ahayd waxa la galay ninka la yiraahdo Sheekh Shariif baa u ahaa horjooge markii ugu dambeysay siyaasadda wixii dhiban lahaa markay dhinteen labadii goos oo la isku riqmay kii xagga laga waday baa iscasilay kii xagga kala ka dagaalamayay baa la keenay intii dhimatay intii gablantay intii ku asay yani miyuu u laabtay te kursiga unbuu dagaalamayay meeshii uu gaaray kuwan halkan isku haystana wallahi ninka unbay idinku gaarayaan siyaasadda inaanad magac reerna ma xoreynaysid dadna xabad lagu ma dhameyn karo 100 sano oo soo socota hadii mudug kaliya la yaado xataa islaayo wallahi inaan la dhamaanayn laguna kala tagayn dadkan cid meesha ka qaxayso oo ka baxaysaana ma jirto ilaahay baa ku abuuray 500 sanadood baa la degan yahay laakiin ummaddu wada jir iyo talo midaysan inay qaataan oo ayagu ay heshiiyaan oo waliba dhalinyarada garaadka iyo aqligoodu inuu shaqeeyo oo ayagu ay xaliyaan arrinta ay xal ka gaaraan oo lagu garab galo culimada iyo odayaasho arrinta nabadeynta ay wadaan unba inagoo dhan ina saaran intaasaan idinkula dardaarmaya gaban halkaas ku soo gabagabeynaya ilaahay ha idinku waafaqo ilaahayna ha idinku wada waafaqo ilaahay yani maankeena ha garansiiyo inaana walaalkeen dilin walaalkeena uusan ina dilin. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.